السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan dhamaantiin asxaabtayni salaamaya. maanta waxaan rabaa inaan la share gareeyo qadadayda maadaama aan gurigayga ka baxayo 7:00 subaxnimo. Charles waxaan haystaa 15 minute. marka intaas waxaan rabaa inaan qadadayda qaabkaan u diyaarsanayo u qaadanayo maadaama gurigayga waxaan kusoo laabanayaa 4 galabnimo hadii aan la idmaayo. marka qofka doonaya inuu miisaanka dhimo si cuntadii dibadana aan u cunin cunto wanaagsanna uu u cuno ayaan macnaha in la share gareynayaa. kan waa salaad kolla la yiraahdo waa kaas kan waa xabuub kan waxa weeye qajaar kan waa 3 xabo ukuntii waniga karkariyay biyaan ku dhex riday. marka waxaan tusayaa qaabka inta kalena aan u diyaarinayo waa si fudud. aniga 15 minute baa yahay 15 minute ayaan ka gaarsiisanayaa qadadayda. marka waxaan soo jarjaray qajaarkii iyo xabad xabuuba. salaadka waan meeray caagana soo geysanaysaa qaabkaas aad ugu shubanaysaa. marka waa wataa ukuntii waan soo kariyay waan soo diyaariyay 3 xabo qudaartiina waatan jeexa leendanaanta hadda doonto ku darsanaysaa inta yar milixdana waad ku darsanaysaa olive virgin korkaad kaga daraysaa hal qaado khalaas qadadaadi way fiican. maxaa dab iyo saliid iyo qararac ku galiya cunto aad u fiican fitamiin lana weeye miisaankaaguna degdeg buu isu dhimayaa. subaxiyo kalena taasaan ku quraacdaa Herbalife. marka insha Allah mar walba waxaan la share gareynayaa qadada maalintii qaabka aan qaadanay. wataa ukuntii diyaariyay korkum baad kaga shubaysaa kaasoo baad leedahay. wataa qadadaadi taasna korkaad kaga dari milixda yarna haddii aad u baahantahay saasaad ku odhan olive livadana haddii aad u baahantahay yar bad saa odhan.